Yasim! Is this safe? He never answers that question. I ask the question, he avoids the answer. ma maqashaa dhawaqaas halkani waa eertaali waa buurta qiiqda hadda waxa ka soo baxaya waa wax qiiq ka badan waxaan ku suganahay Danakil Depression meesha ugu khatarsan dunida si aan u aragno waxan iyo waliba wax kale oo ka badan laakiin safarka halkan aan ku yimid ayaa ka sii weynaa waana idin tusi doonaa ayna Maria safarkii u dambeeyay waxaan booqanay meesha ugu daran dunida waa Danakil Depression halkan heerkulku wuxuu gaari karaa ilaa 49 digrii sababtaas darteedna waxa ku yaala meel ay qasab tahay inaad indhahaaga ku soo aragto si aad u rumaysato mid ka mid ah waa fulkaanahan Ertaali. Ooh, that looks like it. ugu dambeyn waan soo gaadhnay balse ugu horreyn aan baranno waxoogaa saynis ah oo meeshan ku saabsan halkaa ma aragtaa waa fulkaanaha nooca loo yaqaano shield waxaa laga yaabaa inaad maqashay nooca stratovolcanoes ee buuraha Kilimanjaro ama Fuji kaasoo sameeya saddex xagalka qaraxa weyn ee pyroclastic la yidhaahdo ee dabka holcaya ku tufo dhulka kani wax yar ayuu ka degan yahay wuxuu u eg yahay gaashaanka dagaalka waana sababta shield fulkaano loogu bixiyey kani wuxuu sameeyaa jasiirado wuxuu sidoo kale daboolaa countryside-ka waana kaa fulkaanaha saxda ah ee halkan waa buuraha yaryar ee qulqulaya ee sidaa u siman kan halkan Ertaali waxa uu aad caan uga yahay harada laafaha joogtada ah waa mid ka mid ah kuwa keliya ee adduunka balse dhibaatadu waxay tahay runtii ma ogin inaan arki doono haradan maanta qaabka keliya aan ku ogaan karno waa inaan dul kornaa haddaba diyaar ma tahay waxaan rajeynayaa inaad diyaar tahay sababtoo ah halkan inaan soo gaadho oo aan meeshan ku tusaamay fududayn saaxiibayaal waxaan nahay tiimkan yar ee u socda Ertaali waa Yaasiim Hageena sidoo kale xaaskiisa iyo waliba Ben iyo ninkan kale ee la yiraahdo Gumbu iyo aniga laftayda dadka badankooda halkan waxay sitaan Kalashnikov ama bastoolad waa meel bila sharci ah mararka qaarkood marka waa in lagu ilaaliyaa ninkan Yaasiim ee hagahayno ahi waa canfartu sidoo kale waa magaca gobolka iyo qabiilka halkan degan My father has the 4 houses for. He made those houses, your father? Yeah, my father the 1997. Abaha ayaa sidoo kale dhisay wadada halkan sax haa waa ilaa 12 kilomitir The road have. wadada wuxuu ku dhisay gacantiisa ma 12 kilomitir oo dhagax adag ah ayuu ku dhisay gacantiisa haa waad yareed markaas oo maaha bal qiyaas inaad kulaylkan ku qaatid dhagaxan laafaha waan qaadi kari waayay xataa waliba imka aad uma kulula waxaan sii wadnay haddaba safarkeena 20 daqiiqo ee aan marayno dhulkan bannaan ee aan wanaagsanayn halkan waxaan doonayay inaan arko 10 sano halkaasi waa cidhifka ma sheegi karno in harada laafaha maanta aan arki doono I want to see it in the comments. Please. ilaa halkan baanu soo gaadhnay oonu soo socdaalnay laakiin ilaa iminka haro laafaha maanu arag tani mar waxay noqon karaysay haro halkaas sidaad arkaysaan waxaa ku yaala 2 tiir kuwaasoo sii daaya oo ay ka soo baxayaan magma dhalaalaya oo guduudan halkaasaad ka arki kartaaba waa mid aad u cajiiba laakiin waxaan filayaa inaan u sii socon doono dhankaa kale waayo qiiq baa ka soo baxaya cidhifka Little teas. Little bit of blue balls. Is that what you want to call it? waxaan rajeynayaa inaan waxan iyo wax ka badan aragno waayo halkan si aan u soo gaadhno waqti badan ayaan soo soconay meeday haradii laafuhu dhinacan bay naga xigtaa harada laafuhu dhankaas ayay naga xigtaa waan yara faraxsanahay saaxiibayaal weli raja ayaynu leenahay inaynu aragno laafaha sidoo kale sida muuqata waxaa jirta wadadan qarsoodiga ah ee hoos ugu dhaadhacda godka halkani waa halka hoos loogu dhaadhaco kani ma aha jidka kaaldeera soo maaha laakiin godka ayaynu hoos ugu dhaadhici karnaa haddaynu rabno halkee waddadan ina geynaysaa Yeah. Yes, Yasim. Yes is the answer. Yes, 100% is the answer. adigu naga horree ma doonayo inaan ku dhaco dhulka hoose ee laafaha magmuu ka buuxa amaanu ka buuxinba Look at it. It's like plastic out. Want to come down? Of course you do. This is Fearless and Far. Let's go. waxaan hoos ugu daagdegnay harada laafaha ee aan rajeynaya inay degan tahay That one have lava lake. Yeah? Yeah. Hey, Mike, we got some good news. The we see this lava. Okay. Go back for that. Amazing. marka halkan ayaynu ka horrayn tegaynaa soo maaha Okay. hey Mike waxaan helnay war farxad leh waa maxay wuxuu inoo xaqiijiyeen halkaas sare aan laafaha ku arki karno
Listen, I don't. laakiin saaxiibeel safaradan anigu ilaa aan arka waxa laga sheega ma aamino waxaan raacnay hagaheena wax badan kama arkaya muuqaaladan diyaaradda droonta laakiin bal aan sii dhawaano taasi ma tahay fikrad wanaagsan talow Oh, jeez. Man. Oh my God. What do you think? I cannot, mate. I've never seen this in my life. We're so close. We're like 50 meters. I've never. That color orange though is just sinister or something, right? Crazy. Oh, we have to fly the drone on this. Yeah. Oh. saaxiibeel waa inaad xasuusnaataan in halkani dhammaanteed tahay haro laafa ah sidoo kale waa fulkaano active ah marka loo eego in 2019 uu halkan ka dhacay qarax weyni waa dhowr sano uun kadib iminka haddaan gariir yar dareemo waan ka cararayaa halkan waxaan korayaa buuraha ninkiina waday ee yaasiim iyo xaaskiisii waxayna leeyihiin halkaasaan anagu idinka joogaynaa anigu saaxiibeel waxaan u taaganahayba sida qof dhagtuu taagantay waxaan oo kale weligii hore umaan samayn halkan inaga dambaysa xataa ma kala garanaya inay kulushahay iyo in kale Listen for them. Okay, it's hot. I mean, that's not a surprise. Whew, whew. Ready? Look at this. Exactly like we saw earlier. These are the tubes. The water slide we saw. Look. soo wareeg waad arki kartaa hawo kulul ayaa ka soo baxaysa tani waa meesha uu laafuu toos uga soo dareero iminka way maran tahay laakiin waa fahantay baan filayaa sida ay u shaqayso eeg bal sidaan ugu dhownahay saaxiibayaal weliba sida ay noo sheegayaan dadka deegaanku intan waa nagu sii dhowaan karnaa saaxiibel sida caadiga markaan imaado meelaha sidan oo kala waxaan sameeyaa waxa haguhu sameeyo oo isagan daba socdaa laakiin ninkii nahagay eeg halku joogo laafaha ayuu wax yar u jiraaba aad baan isu ilaalin doonaa waayo bal eeg kuwan waxay u badan tahay inaad qiyaasi karto waxa uu yahay waa maagmo fresh ah oo soo baxay wax yar ka hor waxay aad ugu eg tahay quraarad waayo waa silika waa quraarad asal ahaan waa waxyaabo la yaab leh soo maaha haddaba waxaa jira waxaan in badan doonayay inaan tijaabiyo jeebkaygan ku hayaa iminka maxaad u malaynaysaa inuu yahay ma karin karnaa waqti aan sidaa u sii fogeyn tani way cusbayd balse iminka waxay u muuqataa inay xoogaa degtay laakiin kulaylka ka soo baxaya waa mid daran okay ma karin doontaa maxaad u malaynaysaan maya eeg baltan waxaan uga dhignay boorsada dhabarka way gubatay boorsadu It burnt the backpack. The Damn. stars, man. Mate, it's like already hard as well. Damn. Imagine how hard it is on our feet right now. It's hilarious. So I never use those straps anyway. Let's get the hell out of here. 20 daqiiqo ayaa ka soo wareegtay miyuu karsamay beedkii maxaad u malaynaysaa waxaan u malaynayaa haa It's been like 15, 20 minutes, so. It's dripping. See that? I've never seen an egg. Look, it's like dripping liquid. See that? Oh, mate. Why? I've never seen an egg drip like that before. Oh. Woo! Ready? Yeah. Hot potato. Hey, Nice. Woo! Hot. Look at that. One little touch. It broke. Under pressure. Look at that. All right, let's get this thing out of the zone of fire zone. All right. We'll give it a shot. We're pushing our luck here a little bit. aan iskaga baxna aagan dabka waxaan la fadhiisanay gumbo iyo yaasiin si aan u eegno in beedka la cuni karo weliba aad bay u kulushahay Wow. Still so hot. hore ma u aragtay tan oo kale haa aad baan u karinay 20 daqiiqo ayaa halkaa taalay weli way kulushahay We overcooked it in 20 minutes. I mean, maybe that's not a surprise. Who wants a bite? Huh? No. Gumbo, no? Yeah, I can try. It's a little bit. It's really hot. Oh, yeah. It's really hot. Ready? Yeah. Look at that. Whoa. Yeah, look like an egg. One of the yeah. waxaan qiyaasayay inay dhadhan ka duwan yeelato may xitaa milix kama dhadhamayso Tastes perfect.
eeg qaybta huruuda beedka dusha waa ka yar akhtar xoogaa yar ayaa la kariyey Damn, that's a good egg. waa sidee Very phosphory. Yeah. It's like tastes like the phosphor enhances that smelly eggness. waxay dhadhamaysaa fosfor haddii aad ukun ku kariso fosfor waa sidan laakiin ma xuma waxaanu qabanaa waa kuwa waa tijaabooyinka sayniska waa markii ugu horreysa aniga saaxiib waxaanu sii socon doonaa dhankaas sidaad arkaysaana si fiican baa halkaa looga arkayaa fulkaanahan qarxaya ka soo boodaya meesha runtii ma doonayo inaan intaa uga sii dhowaado ma aragtaan saaxiib yeeltaa markaan meesha eegaya waxaa la moodaaba in qori wejiga laygaga hayo mid laysku hadlayn kara ma aha waa khatar halkan markaan marinay kan baanu aragnay imika wuu qarxayaaba sidaad aragtaan waxaanoo kale weligii hore umaan arag wayna soconaynaa ina mariya saaxiib yaal waad arki kartaan sida uu soo tufaya dabka This one not was this a new moving for the fire. siduu yaasiin noo sheegaya waxay muuqdaanba biyo fulkaanaha shiilka sidiisaba sidan ayuu soo boodaa sidaad u jeedaan webiga biyihiisoo kale ayuu soo baxayaan laakiin waa dab waxaa ka soo boodayaa toos baad halkan ugu arki kartaa sidaad u jeedaan dabkani markuu soo baxo dhulka ayuu ku fidayaa waana sida ay ku samaysmeen dhammaanba waxyaabahan waaweyn ee aaggan yaalla oo dhammi imise jeer bad halkan eertaal timid 30 jeer ayaan imid tan iminkaan arkayna wax ka weyn maaragtay ama mid ka yar haa mid ka weyn baan arkay mararka qaar markaa way weynaataa miyaa haa adigoo canfari baa tahay soo maaha haa waa maxay waxaa halkan kuu saaran waa sorong tan waxaa lagu magacaabaa sorong markaa waxaad sidataa sorong iyo baastoolad oo dhinaca kugu jirta ma aragtaan baastooladu maan jeeda halkan aan ku arko And the pistol, see this? I see the gun. Yeah. I do see it. waxaad u sidataa baastooladan haa hubkani waa dhaqanka dadka canfarta In the culture one. In their culture. Yeah. marka ma waxaad u sidataa inaad isku ilaalisaan sidoo kalena aad xoolihiina ku ilaashataan oo aad sidaa safe noqotaan anigu waxaan u adeegsadaa inaan brotokoolada ku ilaaliyo ama nidaamka waxaan imika aad ugu dhownahay Eritrea iyo Djibouti dadka halkan joogaana waa dad adag soo maaha haa dhanka waqooyiga waxay haystaan hub waaweyn qoryo caadiyeystaan laakiin mid yar iyo mid weyn waa isku mid Soomaali si aad u isticmaashoon haa wax dhibaato ma laha waqtiyada hore halkan dhibaato ka jirtay laakiin maalmahan xaalad way degan tahay eeg dhowlacadayntiisu waa hub oo kale saaxiib yaal halkan markii aanu imanaynay waxaan moodaynay oon islahayn waxaad soo arki doontaan fiiyada meesha muuqaalnabad ka soo duuban doontaan kadibna guryaha ayaad iskaga soo noqon doontaan laakiin waxa aanan ogeyn ayaa ahayd inaan godadkan iyo fulkaanayaashan dul socon doono labada kale marka laga tago ee laafaha soo daynaya godkan laftarkiisa qiiq baa ka soo baxaya waa maxay kani waa god cusub A new hole. We made a lot of jokes about, what if the ground breaks? Wouldn't that be crazy? waxoogaa kaftan ayaan isweydaarsanay waxaan isku lahayn bal ka waran haddii dhulka iminka soo dilaaco taasi waa la miyayna noqoteen su-aashaas marnaba kama jawaabo marar badan baan weydiiyey laakiin jawaabtuu iska diidayey halkaa eega maharadiibaa waxaan filayaa inay tahay harada laafa ee ugu weyn aynu yar dhowaano Yeah. Watch your step in lava lakes. tani waa harada ugu weyn ee laafaha ah ee ka dhigtay halkan eertaali mid caana dhankanna eeg waxay u eg tahay kalaradii badnaa isku dhex jiray iyo ceeryaantii iminka waxba aad loogama arko laakiin waxaa jira wakhtiyo aad caad u arkaysa dildilaacyada iyo casaanka iminka waxaan joognaa wakhti fiida laakiin habeenkii ayaa si fiican loo arkaa sidoo kale dhinaca kalena waxaad ka arki kartaa laafaha soo daadanaya meeshaas haddaba ma geli karno ilaa aan dib u soo wareegno iminka dib baanu iskaga noqonaynaa laakiin waxaanu soo noqonaynaa marka fiidku madoowaado ee aanu si fiican u arki karno saaxiib yaal haddaba ilaa halkan haddii aad soo gaadheen muuqaalka like saara sidoo kale haddaad nagu cusubtahayna subscribe noo saar waa inoo muuqaalada xiga insha allah aad baad mahadsantihin